بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كاساهن كنولشا وانا دي كغسو تبيع على مقالة كيب تاون ادالكا ساود افريكا. داوديال برنامج كاساهن كنولشا تدبات كان وحاين اوغو مرتيا الشيخ محمود او عبد الله عارف او سعودال كويميد ادالكا ساود افريكا. تدبات كان برنامج كا ايان كومرتقادني waxaana ka wareysan doonaa arrimo dhowr ah oo la xiriira islaamka iyo waliba waxyaabo badan oo ku aadan diinta islaamka. ugu horeyn Sheikh Maxamuud ku soo dhaw barnaamijka Sahanka Nolosha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waa ku dhawaha barnaamijka Sahanka Nolosha. Barakallah. Waa tahay intaan u galin su'aalaha kale ugu horeyn haddii aad inoogu bilowdo taariikh nololeedkaadii iyo qaabkii aad wax ku soo baratay qaasatan Quraanka Kariimka sidaad ku soo baratay. Bismillahir Rahmanir Rahim. كل تاريخ نوليد كيجا أنا وعان دشي كن سجال بغل كنتن إيا سجال كي مدمر كاسي لقى جوجو تضبط سنة أما سديد سنة عوي كن سجال بغل لحدن إيا تضبطي أيام بلعب دكس القرآن الكريم كا مركه هرانا وعان كل شيء طول اللي هذا عيال برف أو كتر سن شبه لها دحاء kadibna tuulo kale oo ayaduna u dhaw maartay meeshaas waxa la yiraahdo dhulkaas afarta tuulo la yiraahdo tuulada ceelka caadley la yiraahdo ayaa madrasada quraanka kariimka ahay aan ka bilaabay 1967 marka halkaas ayaan quraanka kariimka ku bilowday macallimkaygina wuxuu ahay macallim la yiraahdo macallim Maxamed macallim Cali cigaal la yiraahdo ayuu ahay oo macallimiinta مشهور سن ودن كاس مارتيا شبه الله دحى قارهان تولوين كاس انت قرآن كبرت مشهور سن وده سدح سنة ايام قرآن كريم كان كحفظيون كل ميي كدبنا ذو مده دانسي جوغي ذو مارتيا وحان اسوق وليغي مقالة مقدشو انيقو ماشاس ان جوغانا وقت كاس كتابة علمك قبل عبي او الى احكام مارتيا كتابك منهاج كاليرادة كسوق قاري ayaan ka soo tagay oo halkaas aan waxbarashada waxaan soo aaday magaalada Muqdisho waxaana imiday 1976 dhexdeeda ayaan imiday halkaas ayaan waxaan ka bilaabay haddana madrasadii maartay ugu horeysay oo acdaadiga la yiraahdo ama samaartay primariga ama dugsiga dhexe oo markaas ahay dugsigii Sheekh Suufi la dhihi jiray oo masaaridu ay dhigi jireen imtixaan aan u galay imtixaankaas ayaan ku baramoosay waxaana markaas bilaabay 1977 ahaday marka iskuulkii waan ka baxay waxa weeye 1980kii 1979 ayaan dhameeyay kabacdi dugsiga sare ayaan galay Sheekh Suufi 1984 ayaan dhameeyay haddaan hooga hal sano joogana waxaan galay jaamacadii la dhihi jiray daraasatul islaam oo qayb jaamacatul asar kamida oo halkaan la keenay marka ayadana 1989 ayaan maartay aan dhamaynay waqtigii burburka afka lagu sii hayay intaasna waxaan u bara jirnay diinta islaamka masaajida ku taal magaalada Muqdisho ayaan wax ka bara jirnay anagoo midda maadigana barana ayaan isku dhex wadi jirnay waxa weeye qadar hadaan soo gaarnay inaan kitaabada akhrino oo maartay anaguna wax daraasayna ayaan wadnay. waa tahay Sheikh Maxamuud intaadan jaamacadda aadin ma jirtaa sheekh aad ka qaadatay barashada diinta islaamka? waa jira mashaayikh fara badan aan ka qaatay oo sheekh la dhihi jiray Sheekh Maxamed Cali Nuur oo Sheekh Maxamed Garweyne loo yaqaano masaajidka dhagaxtuur ku yaala magaalada Muqdisho kitaabku akhri jiray oo dhinacaas galbeedka Soomaaliya ka yimiday oo sheekayga ayaan tafsiirka ka bartay mashaayikh badan oo kale intooda jirto xagga fiqiga Sheekh Abdullaahi Cusmaan Sheekh Abdullaahi Minhaj loo yaqaan asagana intaas 1977 intaas ilaa maartay 1986 intii laga soo gaarana away fiqiga iyo culumtan kale oo ahkaamta kaleentood iyo carabiyada iyo ayaan bara jiray masaajid fara badan wax ka bara jiray mashaayikh fara badan ayaan wax ka bara jiray oo hadda maartay waxna nool yihiin waxna ay dhinteen
ilaahay khayr ha ka siiye. sidaas ayaan anaguna waxaan ku ahay mudaris oo diinta islaamka asaguna waxa uu barta akhriya ilaa waqtigan haatan la jooga ayaana sidayda u wadaa. alxamdulilaahi maaragtay sidaas ayaana maaragtay waxbarashadaydu ay ahaaday. waa tahay sheekh maxamuudo in badan aad kusoo dhex jirtay barashada diinta islaamka, marka sheekii ugu horeeyay ee ku aqriyay tafsiirka qur-aanka kariimka sheekhu ahaa? sheekhaas aan kuu sheegayo maaragtay sheekh maxamed garweyne la yidhaahdo ayaa sheekhayga ahay. asagaas ayaa tafsiirka iigu horeeyey oo waxaa weeye 1979 markaas ay aheedayoo dugsiga dhexe aan dhammaynayay ayaan waxaan ku tixnayba tafsiirkaan ku tixnay. marka 1984 waqtigaas wixii ka dambeeyey xataa waxaa weeye 1984 waan akhri jiray, laakiin waxaan si mashhuura u akhri jiray 1986 ayaan masaajida waaweyn oo magaalada muqdisho ayaan duruusta tafsiirka iyo kutubada kaleba aan ka bilaabay oon akhri jiray anigoo markaasi ruqsad ka haysta oo lay fasaxay dowladii markaasi waqtigaas jirtay wasaaradeedii arrimaha diinta maaragtay ay ugu ogaayeen arrintaas. waa tahay waxaa si weyn lagugu yaqaanaa oo aad caan ku tahay akhrinta tafsiirka qur-aanka kariimka. markaan kasoo tagno tafsiirka qur-aanka kariimka ma jirtaa kutub kale oo aad akhrisay sida axaadiista, cilmiga luqadda iyo weliba kutub kaloo fara badan? waxaasoo dhan waxaanan akhrin ma jiraan. masaajida ayaan wax ku akhri jiray. waxa weeye sida mashhuurka ah waxa weeye tafsiirku idaacadaha iyo tv-yaasha ay ugaga bixi jiray. tv-gii iyo maaragtay idaacaddii hoon afriig ayuu ka bixi jiray iyo idaacado kale oo fara badan oo magaalada ku yaalo. hadda magaalada idaacadda hadda kulmiga ugu dambeysay oo sanadkii hadda aan la soo dhaafayo 2014 2015 maaragtay shantiba xataa la dhihi karo aan maaragtay dhameeyay. intii ka horeysana waxa weeye sidaas ayaan wadi jiray. marka tafsiirka ayaa markaas uu mashhuursan xagga idaacadaha iyo waxaas laga akhriyo. waxa weeye axaadiista waxaanan akhrin waa ay ku yar yihiin iyo axkaamta. waa tahay sheekh maxamuud cabdulla cariif, culimmada kale markay inta badan ka sheekeynayaan taariikh nololeedkoodii ama qaabkooda waxbarasho iyo xitaa weliba qaabka ay u gudbiyaan diinta islaamka, caqabado badan ay la kulmeen oo dhibaatooyin badan ayaa soo wajahay in badan. marka adiga intaad ku dhex jirtay barashada diinta islaamka iyo faafinteeda maxaa kugu dhib badnaa oo kusoo wajahay? aniga alxamdulilah ilaahay mahadiisa wax dhibaataho isoo wajahay ma jiraan. intaan diinta islaamka baranayay danyaro iyo maaragtay inuu maaragtay qofku kitaab uusan iibsan karin markuu qof xiray oo wax baranayo waa dhici jirtay, laakiin wax mashaakil ahoo bani aadanka xaggiisa iiga yimid ma jiraan. aniguna hadda waxa weeye ilaahay alxamdulilah qof ku hanuunsan ayaan ahayo inaan wax bartaan jeclahay, dadkana aan wax baro. marka wax caqabadahoo iga hor yimiday waxaas caamka oo dalka ka dhacay waxata dhibaato anaga nagama soo gaarin. sidayna ayaana maaragtay hawshayna weli u wadnaa. ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas waa nagu nabadgeliyey, wax dhibaataana ma arkin anagu. waa tahay waxaan la soconaa dagaaladii sokeeye ee dabadheeraaday oo dalka ka dhacay. culimo badan iyo dad badan oo shacab ah iyo weliba siyaasiyiin aan yiraahdo dalka way isaga carareen oo dibadaha la wada aaday. adiga halkee u qaxday markay dagaalada sokeeye dalka dhaceen? anigu dagaaladu markay socdeen dalka meel aan ka aada ma jirin. waxaan ku noolay sidaan uga imiday dhulka baadiyaha oo aan kuu sheegay oo aan ku dhashay oo tuulada ceelbaraf iyo agagaarkeeda oon kusoo barbaaray. saan magaalada u imid oo waxbarashada u bilaabay. dagaaladii markay dhaceen anagu meeshayda iska joogay, magaalada ayaan joogay. markii dagaaladu dhammaadeen hadda dadka waxyaabihii badanayo mashaakilaadka ahayo dad badan ay ka carareen. weligii anigu dalka kama tegin ilaa uun amuure xaj iyo danaysi oo sidaan oo kale hadda halkaan Cape Town aan u joogo wadankan South Africa iyo waxyaabo sidaas oo ayaga laftirkooda dacwada ku saabsan mooyaane anagu dadna meelna kama aadin. cidna markaasi waxa weeye aan bani aadam oo makhluuq ah ka cabsana ma jirto. ilaahay subxaanahu watacaala ayaana tala saaran, isagaana nagu filan. khilaaf xoogan oo dhanka diinta islaamka ah ayaa u dhexeeya culimmada Soomaaliyeed. marka suuragal ma tahay khilaafkaas in xal laga gaaro oo adinka culimo ahaan intaad fariisataan arrintan aad soo afdirtaan? bismillahi raxmaan raxiim. khilaafkaas waa khilaaf soo jiri jiray oo taariikhda islaamka ayuu ku fog yahay. mundu waxaa weeye laga soo bilaabo casr saxaaba khilaaf fara badan oo xagga maaragtay
caqiidada ayaa soo jiray. laakiin hadda khilaafkan Soomaalidu waxa uu soo xoogaabay waqtigii maaragtay nidaamkii xukuumiga ahay la waayay cid walbana ay maaragtay manhaj ay soo qaadatay oo manaahijtii la isku khilaafi jiray oo dalka khaarijkiisa ahaa jiray weligoodna soo jiri jiray. hadda qof walbana maaragtay meesha ay hawsha ka bilowday ayay waxay isu malaysaa in meeshaas ay sax tahay. laakiin waxa weeye haddii arrintaas la isaga yimaado oo si wanaagsan uun maaragtay wax la isaga dhaadhiciyo wax badan oo hadda marka waxa ay haystaan ay sax la yihiin laakiin waxyaabo qaladaad uga jiraan ayaa ka bixi kara. haddii wax la isfahamsiiyo dadku dad Soomaaliya weeye wax dhibaato ah jiri maayaan. waxaana rajaynaynaa in arrintaas laga gudbi doono. qof walbana hadda waxa ay haysato waa ay la fiican yihiin oo uma haysato inay wax qalad ay ku sugan tahay. maxaa yeelay macallimkii ayada wax baray iyo intii meeshay masterka ay wax ka soo qaadatay sidaas ayaa markaas ay sax ugu fahamtay. marka insha Allah taala khilaafada weyn oo maartay asaas oo ma jiro. dadka khilaafka ay la tahay ama ayagu fahamkoodu uu gaaban yahay ayaa laga yaabaa inay khilaaf weyn u arkaan ama ay waxyaabahaas wax ka qaadi karaan. laakiin dadka aqoonta leh khilaafkaas wax weyn oo saas uma arkaan. watahay sheekhu ku dhawaad 2 bil ayaad joogtaa dalka Koonfur Afrika. wax badan waad kala socotaa xaaladda jirta. laga yaabaa intaadan imaanin ka hor inaad fikir kale ka aaminsanayd. maxaa kaaga baxay tan iyo markaad timid ilaa maanta? kulli dalka South Africa waxa weeye anagu markeena horena waxa weeye dadkii oo wax bara jirayo oo juqraafiyan wax uga bartayaan ahayna u yaqaan qaaradan Afrika iyo maaragtay qaaradaha kale taariikhda iyo maaragtay juqraafiga waanu ku qaadanay. si guud ahaaneed waan uga warqabnay. hadda si gaar ahaaneedna hadda dadkii Soomaaliyeed oo ku soo yaacayo waxa weeye warar badan ayaa laga heli jiray. haddana waxa weeye markaan imiday wax badan oo aan ka sii faa'iideysanay. wallay waa dalkaanu dal barwaaqah oo wanaagsan oo maaragtay alxamdulillah noloshiisu ay fiican tahay weeye oo aad iyo aad u dhisan. dadka joogana dad kala duwan oo maaragtay ummado kala duwan jooga. waxa weeye gaar ahaan dadka muslimiinta oo wadankan ku noolne waxa weeye noloshoodu ma xumo oo nolol wanaagsan ay haystaan. masaajid fara badan ayaanu tagnay oo dad maaragtay muslimiin oo gaar ahaan dadkan hunuuda hindida ay dhiseen oo ay ku cibaadeysan ay ku nool yihiin ayaanu aragnay. si wanaagsan oo nidaam fiican ay ugu nool yihiin oo diintooda islaamka shacaairtooda ay wataan. haddana meeshan shacaairta islaamka wax laga hortagayo ma ahan. cid walba waxa weeye way ooga kartaa. waxyaabaha yararka ah oo dadka soo hijrooday gaar ahaan dadka Soomaalida halkan yimiday haystane waxay u badan yihiin wax marka hadaad fiiriso ayaga dhexdooda mashaakilaadkii jiray wadanka uga yimaadeen waxyaabo raad ku leh inay yihiin waxyaabaha ay iska halaynayaan. laakiin hadda wadankan wax dhibaato ah oo xagga xukuumadda iyo dhibaato ka jirta oo dadka shacabka lagu hayo ma jirto. maalin dhaweed waxaad ka qayb gashay loo sameeyay ilaa 3 qof oo lagu dilay dalkan Koonfur Afrika. dabcan waad ka qeyrotay oo dadkii meesha joogay waxaad ugu baaqday ama kula talisay in dalkan la isaga laabto maadaama hal mar ay adag tahay in wadankan laga wada guuro. arrintaas wali ma aaminsan tahay? arrintaas wali waa aaminsanahay. anigu waxaan aaminsanahay islaamnimada iyo fahamka iyo aqoontuna ay keenayaan dadka Soomaalida meel kastoo caalamka ka joogaan. dadka South Africa kaliya jooga ma aha inay dalkooda ay ku laabtaan. maxaa yeelay xubbul wadan min al-iimaan weeye. wadanka la jeclaado iimaanka ay ka mid tahay. wadan jacaylkana waxaa looga dayanaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam Makka markuu ka baxayay oo Madiina uu hijroonayay hijradii loo idmay asoo idan haysta oo markaas lagu tashaday in la dilo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu baxay wadadii uu qaaday oo wadadii caadiga ahayd Madiina aan ahayn markii uu qaaday asagoo gaaladii ka baqaaya markuu wadadii Madiina uu ku soo dhacay oo Makka tageysay nabiga calayhi salaatu wasalaam ishtaaqa ila baladihi baladkiisa ayuu hiloobay. markaasuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaaya Makko una qiiraysan yaa Makka innaki la ahabbu bilaadillahi ila Allah wa ahabbu bilaadillahi ilayya walawla an kharajuu minki qawmi ma kharajtu minka wada. makoy waxaa tawda bilaadi ilaahi meesha alla loo jecel yahay ilaahi ilaa xaramka ilaahiya ku yaala anuguna aan u jecelahay haddaan ummadaydu iga ka saari lahayn kaama bixi lahayn. ilaahi wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tasliye uga dhigay inna alladhi farada calayka alqur'ana larhaaduka ila macaadin
aayadaasaa soo degtay in nabiga calayhi salaatu salaam dib oo uu soo laabo doono oo markaasi amalkiisa iyo jacaylkiisa oo markaasi uu hirgeli doono. taasna waxa weeye waxay ku tusaysaa wadan jacaylku iyo meesha lagu dhashay inay muhiim tahay qofka muslimka inuu wadankiisa jeclaado weeye. haddana waxa weeye dadka hadday adduunka kala aadaan haddii maalin walba ay halkaa kusii socdaan waxaa lumaaya markaasi qoomiyadnimadii iyo soomaalinimadii xataa islaamnimadii ayaa lumi karaysa. sababtoo meeshaas dadka haddii dad ku dhashaan dadkii hadday caruur yihiin ummadahaas dhaqamadooda sii qaataan waxay sii dhalaan ay sii qaataan sida caqliga iyo fahamka uu keenayo waxaa lumaya qoomiyadii ayaa lumaysa, qoomiyadnimaa lumaysa, waxaa lumaya islaamkii baa lumaya. sheekh maxamuud arintaas su-aal la socoto waa ognahay soomaalida markii dagaalada dalka ay ka dhaceen oo kale dadkii dibadaha u wada qaxeen oo sida wadamada reer galbeedka oo inta badan looma qaxin wadamada muslimiinta ah. marka diinta islaamka maxay ka qabtaa in qof muslim ah uu u qaxo ama uu ku noolaado dhul gaalo ah iyadoo kooban haddii suuragal tahay? waxa weeye taas waxaa sababay dadka muslimiinta ah ayaan lahaynin dhaqan oo manhajka islaamka lagu dhaqmo ayaan lahayn. marka islaamkuna waxa weeye wuxuu islaam ku noqonaya markii lagu shaqeeyo oo la qaato hadyiga nabiga calayhi salaatu salaam iyo manhajkiisa markii la qaado. taasaa marka waxay keentay dadkii inay naxariis ay ka waayaan ummadahaas wadamada ay ku nool yihiin oo ayagana dhibaato ay haysato gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ay wadamadaas u yaacaan. taasaa keentay marka waxa weeye dadkii haday arintaas u dhacday haatan waxa weeye in halkaas lagu sii baabo maahan xaalado xun iyo waxyaabo badan ka soo socda. dadka waxa weeye Soomaaliyeed dalka meel kasta ay caalamka ka joogaan waa inay dalkooda aysan halmaamin. maalmo ka hor waxaad booqatay meel quraanka lagu sheegay oo ku taala meel u dhow magaalada Cape Town. waa meesha ay ku kulmaan labada badood ee Indian Ocean iyo Atlantic Ocean. marka kulay cilmi ahaan waxbaad ka sii ogeed haddana si caadi baad u tagtay. marka ma tahay meesha quraanka lagu sheegay meesha markaad booqatay? horta meeshaas waxa weeye marajal bahraynka hadda ay leeyihiin marajal bahraynku marajal bahrayn yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyani markuu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala. bahraynka waxaa laga wadaa bahar badda oo macaan oo webiga ah iyo badda milxiga oo dhanaanka ah. webiyaashu waxa weeye markay biyaha ay sii qaadaan waxay ku daraan badaha ay ku daraan. webiyaal badan ayaa adduunka ku yaal sida Soomaaliya oo kale Jubba iyo Shabeelle waxay ku daraan badda ay ku daraan. marka webiyaasha oo badda biyaha ku daraaya bahraynka la sheega kuwaas weeye oo waxa weeye biyaha oo webiga markay badda galaan ilaahay qudradiisa xaajis ayaa jira baynahuma barzakhun la yabghiyani. marka alla uu leeyahay waa labada badoodna waxa laga cabiraa webiga iyo markaasi badda caadiga ah. marka biyahaas markay isdhex galaan xaajis ayaa jira oo macnawi oo loo jeedin oo biyihii oo macaanay biyahan badda ma saameynayaan oo ma dhanaankooda ma gaarsii karaan. biyahaas marka biyihii way ku darsan yihiin soo haddii la fiirsho biyo oo hal biyo ayaa loo malaynayaa laakiin waa kala duwan yihiin. cilmiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka khubaradan oo culumtan kaleentoo taqaana iyaguna way baareen oo waaragtay way ogaadeen. marka hadda laakiin meeshaan hadda marajal bahraynka la leeyahay waxa weeye badaha magacaanta iska laho badaha adduunku waxa weeye badaha waxay leeyihiin magacaan fara badan. hadda badweyntan Hindiyo iyo waxa meesha ku kulmaayo oo isaga dhawaay badweynta Atlantiga. marka haddii si kale loo macneeyo horta marka ugu horeysa macnaha quraanka uu sheegayo labada bahraynku waxa waaye waa webiga iyo badda ayaa loola jeedaa quraanku saas weeye. laakiin haddii la sii macneeyo haddana oo la sii ziyaadiyo maadaama waqtigii saxaabada iyo waqtigii rasuulka calayhi salaatu salaam iyo ka horba baduhu magacaan ay lahaa jireen oo markaasi ay kala leeyihiin sida biriguba uu magacaan u kala leeyahay oo u kala astaysan yahay baduhuna saas way ahaa jireen. marka waa astaan noocaas oo ka dhaxaysa jirta oo haddana xagga biyaha maaragtay midabkooda ay kala duwan yihiin. saas laftirkeeda waa la dhihi karaa markaasi bahraynka waa la dhihi karaa labadii badood oo isku darsanta waa la dhihi marajal bahrayni waa la dhihi karaa. marka meeshaas hadda anagu aan soo booqanay waxaan u soo booqanay taariikhdii iyo juqraafigii aan qaadanay
waqtigii aan waxbaro jirnay ayaan waxaa weeye meeshaas dhanka juqraafiga ninkii maaragtay badmareenka ahay 3 nimay ahaayeen raggii badmareenka ahay oo dagaalkii labaad oo adduunka ka bacdi bilaabay hawshaas ninkii la dhihi jiray Vasco da Gama la dhihi jiray oo wadankaas Spain iyo Portugal soo maray oo halkaas soo maray oo badahan inay baaraan ama ay ogaadaan caalamka badaha ku wareegsan waxa meeshaas markaasi juqraafigiisu ku samay oo halkaas ku ekeeyay Vasco da Gama ninkii la dhihi jiray dikaas marka waxa weeye meeshaas wuxuu keenay wuxuu dhahay meeshaas waxa ku yaala boorka hadda anagu aan isku soo sawirnay oo meesha ku dhajiyeen waa meel taariikh oo la og yahay Keep of Good Hope ayaa ku taala waana carabigana waxa la ra'su rajaa salih halira meel macnaha wax laga sii wadi karo oo juqraafigu ka sii soo karay yahay waxa ka sii qaaday halkaas ninkii la dhihi jiray Christopher Columbus markaas wuxuu tagay wadankan hadda America la yiraahdo asagoo inay America taa aan fahamsanayn oo markaasi jasiirooyin oo qarbiga ah oo Hindiya kamida asagoo u haysta laakiin dhul cusub ay tahay asagoo soo saas u haysto ayuu ninkaas asagoo ka geeriyooday halkaas waxa ka sii waday nin la yiraahdo Amrico Vespucci la yiraahdo ninkaas iktishaaf juqraafi si sameeyay dhulkaas inuu dhul cusub yahay waxaana ku noolaa jiray niman la yiraahdo hunuudul humur ama la yiraahdo red hindiyaanisti la dhaho ali beesina xataa Soomaalidu yiraahdaa nimankaas hadda wili waxba ka jooga waa niman aad iyo aad dhulkaas loogu dhibay marka wuxuu ninkaas sameeyay markaas dhul cusub inay yahay markaas ayaa caalamka dadkii jooga tagay meel walba laga tagay marka Amrico Vespucci macnaha Amerikadaas ninkaas oo iktishaaf juqraafi iska lahay ayaa loogu magac diray Amerika halkaas ay ka timiday marka meesha waxa weeye waa meesha ugu horeysay oo juqraafigi halkaas laga soo bilaabay sahankii badaha markaas halka lagu joojiyay ahade oo ninkaas uga tagay marka waa meeshii rajada laga qaba marka ra'su rajaa salih halila marka anagu waxa u tagnay inaan soo hubino maadaama hadda halkaan aan nimiday wixii waagi aan baranay inaan si mubaasharata inaan soo ogaano oo hadda waxa weey waa isku soo sawirna meesha boorkina ugu tagnay dad badan oo caalamka ka yimid oo fara badan oo kala go'an lahayn oo kumanaan ah oo meesha imaanayna waan aragnay marka oo aqoonta tixgelinay waa tahay marka soo koobo marka meeshan ma ahan Cape of Good Hope ma ahan meeshii lagu sheegay quraanka Soomaaliya ma hadda Marjal Bahrain hadda meeshan waa ahayd meesha ra'su rajaa salih ay ahayd oo meesha waa ahayd meesha liiraa Marjal Bahrainku waa gooni oo hadda labada badood meesha iska galaan ayay hadda iyagu ula jeedaan labada badweyn oo Atlantiga iyo maaragtay bidda badweyn oo Indian Oceanka labada meelood meesha iska galaan ayaa iyaduna meesha ku taala marka waxa kulmay labadii badood meeshay maaragtay calaamaadkooda ku kala ekay iyo meeshii juqraafigaas maaragtay ra'su rajaa salih Keep of Good Hope meesha la yiraahdo meeshaas inay maaragtay ayaduna ay noqoto meeshii oo Vasco da Gama meesha uu juqraafiga ku sameeyay ahayd wata Sheekh Maxamuud waxa soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxa jirta arday badan oo talabatul cilmi oo cilmiga inay barato aad u jecel waxay aad u jeclaan lahaayeen inaad siiso talo ku aadan qaabkii cilmiga ay ku baran lahaayeen gaar ahaan tafsiirka Quraan Kariimka iyo waliba cilmiga kale ee Islaamka aad iyo aad maaragtay cilmigu waxa weeye waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adduunkan keeno waxa uu fiican weeye rasuulkeena kaleey salaam oo adduunka ka zuudiyay Ilaahay wuxuu dhahay qur rabbi zidni ilma waxa dhahdaa nabi Muhammad cilmi iyo ziyaad rabbi oo cilmi inuu ziyaadatul ilmi ila Allah uu weydiisto ayaa nabiga la amray wax kale oo nabiga la amrana ma jiraan oo ziyaada oo uu weydiisanayo marka cilmigu waa waxa uu sharafta badan oo insaanku ku sharafoobo haddaan cilmi jirin wax jira ma jiraan marka insha Allah ta'ala iyada waxaan ka rajeynaa inay maaragtay kaliya maadada kaliya xooga saarine diinta islaamka wali waa la akhriyaa kitaabada sida aanu akhrina masaajidii sida loo jooga xalaqaadka cilmiga ayaa muhiim ah inay tagaan oo markaas waxa weeye kaliya aysan fiirsanin shahaadadii ma qaatay dugsi dhexe ma ka baxay dugsi sare ma ka baxay jaamacad ma ka baxay kaliya inaysan arintu ahaanin
wuxuu cilmigaas xataa ku barakoobi karaa ama sharaf ku yeelan karaa markii diinta la barto marka dhalinyarada waxaan ugu baaqaynaa inay dadaal fara badan ay sameeyaan oo diinta si fiican ay u bartaan maxaa yeelay diintu barashadeedu wax qaayala ma ahan laakiin waxaan wax la dhamayhayo waqti ku kooban weeye marka arintaas xoog ha saaraan waana la isku bara karaa sababtoo annagu waqtigeeni waa bara jirno maadada iyo maaragtay iyo diinta waa isku bara jirnay marka dadkii hore way dadaalayeen laakiin dhalinyarada hadda joogta waxaan u dardaarmaynaa inay dadaalaan oo ay diinta xooga saaraan maskaxdooda way furan tahay ay ku dadaalaan waa mahadsantahay aduna baaraka allah wagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa sheekh maxamuud oo cabdulla cariif oo ku sugnaa dalka koonfur afrika islamarkaana martina ugu ah toddobaadkan barnaamijka sahanka nolosha barnaamijka waxaa idila socodsiinayay anigoo cabdikariim mursal faaraxa dhanka farsamada iyo duubista waxaa gacan weyn ka geystay maxamed axmed siyaad geele intaan ku kulmi doono toddobaadka dan barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu